wuxuu ahaa maqubaystihii ugu shiirka badnaa dunida, nimaan qubaysan 60 sano kana qurmuuna orgida qooqan ee Cali Uraaye, isagoo u soo kamkami jiray sidii boosaneerkii. waa ninka col ka goostay saabuunta jirka lagu mayro iyo catarada la isku carfiyo. dunidu u nabcaa dhibcaha roobka, ilaa saraakiisha Guinness World Record ay damceen inay leebaajo ugu qubeeyaan sidii gaarigii, balse ninka reer Iiraan waa ka biyo diiday. sidaadoo kale sariir kuma seexdo ee qashinkuu dugaashanayay, raaxo oo idilna rafaad buu ka doortay. maqubaystihii weynaa ee Camuu Xaaji ayaa geeriyooday kadib toddobaadyo looga qubeynayay uska ku tuxubaystay jirkiisa. fadlan like saar muuqaalkan, haddaad noo sheergaraysana waxaan gaari doonaa malaayiin mayl. warbixintan waxaa taabagelisay shirkadda Forever Living. haddaad ku biirtana waxay kuu ballanqaadaysaa maal adduun oon xad lahayn. mahadsanid. Camuu Xaaji oo u dhashay dalka Iiraan, qubays la'aan darteed ayuu ku noqday ninka ugu wasakhda badan adduunka. wuxuu ka yaabsaday hay-adda layaabka adduunka oo qudheedu layaabka adduunka baadi goobta si loola yaabo. saraakiisha Guinness World Record ayaa madaxa gacmaha saaray markuu qaatay qurmuunka kasoo kamkamaya uskag badanaha reer Iiraan. sidaasna wuxuu ku galay buugga dhacdooyinka adduunka. Camuu Xaaji oo aan qubaysan in ka badan nus qarni, isla markaana aan weligii guursan, ayaa axadii ku geeriyooday tuulada Dijgah ee gobolka Faras ee koonfurta dalkaasi, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan. ninkan ayaa dhowr iyo 60 sannadood go'doon isgeliyey kolkii uu ku guuldaraystay gaarista halkii uu tiigsanayay. waxaa lagu tiriyaa inuu si weyn u aaminsanaa keligii noolaanshaha, waana tan ka dhigtay gooni joog xag jira. 19 jir markuu ahaa ayay bilaabatay qisada qubays la'aanta ee ku habsatay ninka reer Iiraan, wuxuuna nacayb ba'an u qaaday bulshada ku nool magaalada Dijgah. tiyo uu rafiiq iyo saaxiib dhow la noqday duurjoogta, isagoo deegaamaystay meelaha qashinka lagu kaydiyo. dhaqamada naadirka ee laga diiwaan geliyey ninkan waxaa ka mid ahaa inuu cuni jiray baktiga xoolaha, isagoo jeclaa hilibka qurmay ee qashin qubka lagu daadiyey, taasoo ula muuqatay fursadda keliya ee uu ku noolaan karo bacdamaa uu la coloobay dadkii uu la noolaa. hoggaanka Guinness World Record oo damcay inay u abuuraan nolol ka duwan midii uu ku noolaa ayaa ku guuldaraystay qorshe ay ku xanaanayn lahaayeen. sida laga soo wariyey Tehran Times, balwadda sigaarka oo sabab u ahayd inuu ka dhaco sallaanka nolosha ayaa dhaxal siisay beebka qadiimiga inuu ku cabo balwadaan horay loo cabin, taasoo ahayd inuu beebka ka dhuuqi jiray qiiqa saalada xoolaha iyo saxarada digaaga. nus qarni uu hogaaminayay jambiyoonka ninka ugu wasakhda badan adduunka ayaa la wariyey inuu ku geeriyooday da'da 94 sano jirka, waana bilooyin uun kadib markii lagu qanciyey inuu qubaysto. dadka tuulada ayaa dhowaan u qubeeyey, waxayna u sameeyeen dib u dejin, laakiin la qabsi waa ku yimi jirkiisa oo boogo iyo nabaro ay ku dhasheen ayaa la aaminsan yahay inay sababtay geerida marxuumkan. dunida ayaa isha ku haysa ciddii dhexli lahayd rikoorka ninka ugu uskaga badan adduunka, bacdamaa Camuu Xaaji uu rikoorkan horay uga dhaxlay maqubaysta Guru Siin, kaasoo qudhiisu qubayska ka cabsan jiray. wargelin muhiima, bishaaro Soomaaliyey, qof walbo ku nool dalkeena hooyo ama Canada, Mareykanka, Yurub, Asia ama Afrika inteeda kale, waxaan idiin haynaa fursad ganacsi oo ay idiin soo bandhigayso shirkadda weyn ee laga leeyahay waddanka Mareykanka ee Forever Living. haddaba ma kugu habboon yahay ganacsigani? fadlan isweydii su'aalahan. ma tahay qof shaqeeya laakiin dhaqaalaha soo gala uusan ku filayn? ma tahay hooyo jecel inay shaqaysato iyadoo ubadkeeda la joogta gurigeeda? ma tahay qof ku haminaya inuu ganacsi sameeyo laakiin duruufuhu ay u diideen? shirkaddani waxay ku haysaa fursad ganacsi oo aad dhaqaale aada u kooban ku bilaabi karto. inaad ganacsigan bilowdo kuma xirra meeshaad joogto, waayo adduunkoo dhan ayuu xarumo ku leeyahay sida North America, Yurub, Aasiya, Afrika iyo waddankeenii hooyo. dhaqaalaha ugu fiican ee aad ku samayn karto dalabka ugu horeeya waa $398. waa markaad joogto Soomaaliya. haddii aad joogto waqooyiga Ameerikana $450 ayaad ku bilaabi kartaa ganacsigaaga. diiwaangelintu waa lacag la'aan, waxaase qasaba inaad haysato dhaqaale yar ee aad ku dalban doonto badeecadaada. manager Cusmaan wuxuu ku dhex yeeshay shirkadda Forever Living ganacsiga ugu ballaaran Soomaalida dhexdeeda.
wuxuuna caawiyey dad badan oo Soomaaliyeed kuwaasoo gaaray isku filnaansho maaliyadeed isagoo ku mutaystay abaalmarino